waxaana noo aqrin doona ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxa loo aasaasay in la helo xoog difaaca ilaaliya sharafta iyo qarnimada Soomaaliyeed isla markaasna ka hortaga wax alla wixii khatar ah ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa si muwaadinka Soomaaliyeed uu si xor ah ugu noolaado dalkiisa wax badan kama oranayo laakiin waxaan rabaa inaan xuso taariikhda xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la aasaasay taariikh dheer oo la soo sameeyay oo dad aad iyo aad annaga nooga horeeyay aabbayaashii naga horeeyay horteen hadday ahayn siyaasiyiin iyo hadday ahayn saraakiilba soo dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo aad garanaysaan magaca iyo maqaamka ay ku leeyihiin ummadda Soomaaliyeed dhexdooda muddo dheer markii ay ilaahay u oofsaday oo ay dhinteen kadib waxay tilmaam u tahay muhiimadda ay ciidankani u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan maantana waxay joogtaa mar labaad oo taariikhdu ay samaysmayso haddana oo ay tahay dad badan inay ayaguna taariikhda ku galaan dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed